ummadda Soomaaliyeed majority iyadoo duruufaha iyo xilliyada xaaladdu say yihiin eegaysa weliba aan lambar koow ka ahay aad baa lagu shaqeeyay qofkana xilligiisu markuu dhamaado taariikhda xustaan saaka oo muddo xileedkaagii wax yar ay ka harsan tahay ilaahay godob buu ku haystaa daaroodna godob buu ku haystaa meelu joogaba hawiyana godob buu ku haystaa aaraarena godob bay ku haysataa ilaahay godob buu ku haystaa oo dhaartii aad dhaartay iyo mas'uuliyadii aad ummadda Soomaaliyeed u haysay sida ay ahayd uma aadan maamulin godobtaas ilaahay ku haystaa toobad baa ku furan daaroodna godob buu ku haystaa laba maamul goboleed buu lahaa 4.5 ka Puntland iyo meesha la yiraahdo Jubbaland dagaal in dhala'aana baad la gasho waxa allaale wuxuu quseeyay 3 sano iyo dheeraadka aan la garanayn hawiyana godob buu ku haystaa Soomaaliya waa isleeysiinayeen heshiina waxay aaminsan yihiin xamar iyagu maanta inay madaxweyne ka noqdaan inay ku haboon tahay oo aad xilkoodii ku haysatid iyo caasimadoodii aaraarena godob bay ku haysataayo murtaadoodu bay ku haysataa oo musharax ahaa oo dawladdu cafiday dawladdu markay wax cafiday waxa loo baahan yahay waxa ay tahay inay u hirgalaan oo aad jeel geliso wali ku xiran ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka hadashay godobta murtaadoodu aaraarena ku haysataa waxa kale godob ku haysta gaar ahaaneed gobolada SSC iyo kuwa geedo oo labada beelood oo waliba aad hadii ay baydankeeda ka soo jeedida oo aad dhowrkaas aad joogtay aad ka ilaalisay xabad in bishiliina waxyaalaha Soomaaliya aad mas'uulka uga tahay ee ay xaq u leeyihiin dawladda Soomaaliya mid in bishiliina inaad ka ilaaliso dawladda aad inta joogtay aanay ka helin okay saaka si qaawan baan kula hadlayaa ma rabo inaan ama kugu talaxtago ama waxaadan ahayn aan ka sheego gobolada SSC oo gobolada Soomaaliyeed siyaasadooda iyo masiirkooda iyo taladooda cid ay marti uga yihiin ma jirto Somaliland Puntland Federal Ethiopia cid ay mas'uul uga yihiin iyo cid ay marti uga yihiin ma jirto cid kastana iyaga u baahanta وانا ضد Soomaalinimada jecel oo aan cugad ka qabin ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba taariikhda iyo waqtiguna wuu isa soo bedelay intii ka horeysay kacaankiina waa dadkii ummadda Soomaaliyeed leaderka waxa gumaysaha ka xoreeyay magaca iyo maamuuska lahaa ummadda kale taariikhdeedu waxay ka bilaabataa jamhadihii iyo kacaankii iyagu waxay leeyihiin taariikh baal dahab ah اوكي burburkii Cabdiqaasim baa ugu horeeyay madaxweyne Ali Mahdi ka soo bilow Cabdiqaasim ku xij Abdullaahi Yuusuf ku xij Sheekh Shariif ku xij Xasan Sheekh intaas waxay kala xishootay gobolada SSC inay tiraahdo Hargeysa la idinka xukuma intaas oo madaxweyne oo cid kasta leh waxay kala xishootay inay tiraahdo Hargeysa la idinka xukuma xilka markaad qabatay inta SSC deeso Djibouti aad tagtay baad waxa tiri Soomaaliya sanaagu abiyay baydankeeda Hargeysa laga xukumay Soomaaliland ma siyaasadeeda kala hadlaya iyo hartiga dowladda go'ayso aad tiri qayb Hargeysa laga xukumo markaas ay weerareen kaartii inta ku cilmiso bixi ka diiday waa magac iyo maamuus ba ku helin oo aan cidina kala hadlana lagu ixtiraamo laga xishooday okay عندي تجربة لجونا سويتيو سودوين يدربان لطمو إيا شرف إيا هدي بعيدا كده ليه هاي أماني هدي أي نفل هذا هاي واتك هاي صعب قبلات إنكو غفلان إيا إن دار هذا أما الجود كدينا والله هيا
wuxuu abaalgudkeedii noqday dad masaakiina maalin kasta inaad ku raali geliso reer hebel bay arkay hadda waxa xaq aad baydankeeda leeyahay aad u leeyihiin aan idin siiyo dad aanan garanayn anagu waxay yihiin inaad tiraahdo maamul hebel iyo reer hebel badan arkaya waa kalsooni daro سيد محمد عبد الله حسن وحي الفلوه واني كلا خيبة الفيلم وذاكتاني مركو هذا الإله وهو الفلوه واني كلا خيبة الفيلم وذاكتاني مركو هذا الإله والله صاح هي في صوتها بقدين إيا عبسي كوك اللي في صوحيالها سياسة دقاب كآد ووجهها سيد أردت حمانكما هايصو ادكو توشر قليل كتانا ما تشتوه وعبسي iyo baqadin ku waxyaalaha ku kalifaya inaad umada sida aad ula dhaqantid waxa ay xaq u leeyihiin duutidid adigoo qof bini'aadan oo kaan aad u tahay mas'uul kana aad u tahay mas'uul qof bini'aadan adigoo ka baqaya dadkani ma aha dad kuraastooda iyo magacooda iyo waxay xaq u leeyihiin عد لقوا فيها مجلية لو كنا سهل بقول دولة لواتنكي يدو دبك دراويشيد يكإنجليز موياني أنا دبك ليتين يخوب كلا يعيدان كلا بعد وحبه من يوحي يطوري عالدور أنا وطري عيالكي هذا الكي اللي توبي سنتري وكتب أن الماء مثل ما أنا أعطيكم من المرأة نانتو لباتن لتشوبنا إن هذا أمة الصوماليات وهذا يطهي وهذا إهل الطهي وهذا مدحوين الطهي ما عليك المسير كذا أتلاقى على قرنين بانكورها اللي قلنا وحش وضره يجي أنا وحبي للناس يجي الله بعضها يجي الدورته وحبك على مباحنا وحات كدارس سنة يبرك أدميش تشوفتي يداراتك حبط كرينا إنا يقول لك كاسو قارين دقال أفي أبننا لقشي waxaa sheegtay calooshaadii iyo caqligaagii iyo raganimadaadii iyo haddii aad maanta waxyeeli lahayd inaadan waxba aadadee baydankeeda leeyahay aad nifkada u geyseen sida ficilkaaga ka muuqata laakiinse ummaddan kumana nebca kulana ficilshay mayso taa intaasaan madaxweynaha ka leeyahay بكينا ويل عدوسا كمانور كروح من كذا الله بيقوم حبا ويبانتي ورسجل وادات قرنا يقولوا بيش من ريحان واتكسو تشيدو وانت الحلكة تشوكتي حسن على خير اللي يقول ابو نضر بحر دير معين حوغا لعاقا اكون كوغا ساري كوب شيء كامل وسنقالين حلي حورتون وحاسنا وحاكوك اللي في ساعة عبسي ادت كبقسيد يادي بيدكيد أمد سيد وهياتك تذكر اللي جلست غير حقيقة طبعا تاسع كلها فيا حامسو تشنسر يا قبر قارنا يعني ما كل يراه غير السيم أنا ورسنجل يدل بهانت لكن كذا سياسة واتكو عبطان أنت أجر سدي أما إلى بربك سياسة غير السيم واتكو عبنا السيم siyaasadana dadku xubnay geystaan golayaasha iyo hadii baydankeeda meesha siyaasadda laga hogaamiyo maalinta siyaasadda cilmigeena iyo golayaasha cilmigeena ari raac dhalay duufa weesagii aabihii baariga ay dhibay jireen inaad geystaan golayaasha hadhowto markuu hadii baydankeeda leeyahay sidii dadkii banaadiriga ahaa ومش ياديه بيدك إنسان بيسمى يحتوي هرتيس البرلمان كورتيس كحلبان كانوا يكويف شو كات قايش كدرستين إلى هذا المدة كل هذا إنسان وقت كعبطان وروح عسى وحسب طماها حلي دور شيء اللي بيشراه وحان لقن كريرس سفريان تذكرين ما نيجي كراس الدنيا كراس الصومالية مدحوينها دورنا يا أما مشرحية الدنيا ورقفك صوالي وهاي سؤال العقل بيشر وفرا لكن سقف عن سياسة دوغل من السياسة يفهم حوجا يربري سنة لقطانته وركده يقول ياش التناسل بين سنة هل تو سياسة ضغط عبانة سان كان بعض ما تهايستان رئيس السودانتي ورسجلوا حبيبي يا معنا واد عبانة سان
usoo dirsada maanta dhaqankii ergooyin iyo haddii baydankeeda leeyahay siyaasiyiin idinku filan siyaasadda oo soo gashada golayaasha iyo aqalada haddii kale cabatinka iska daya dadka nooca kana idinkaa meesha keensadee kuwii 4 sano joogay xamar banaadirigii baad moodaa baarlamaanka hortiisa saamuusa ku iibshaan ee labada gole ku jira dhibaantii horsan gelin idinkaana waxaa keena ka taxadara waxaa aad iyo aad baan isanayo billahi tawfiiq wuxuu yiri sayid maxamed abdullahi xasan wuxuu ku yiri baweeso waa kugu arkaa agab salaadeed aadana waa ka maqlaa ooga waa bari haddii urka kaa jiro wardigu kaama ornayna shahaado beelow maxaa aha kugu aasan ummadani aad iyo aad may ku taageertay iyagana odaybaan adigana odaybaan ahay saaka iyaga waxba kama qaldanay adiga wax ka qaldan yihiin habeen iyo maalin cadaalad Soomaaliyeed iyo xasoor baad ka hadlaysaa in ay wanaagsan tahay oo aad ka shaqeynaysid Soomaaliya waa 18 gobol cid kasta xaqeeda iyo xuquuqdeeda si